wararka ciyaaraha maanta idiin hayna waxaa ka mid a xidig Real Madrid si fudud uga baxsaday oo u waalanayaan Chelsea iyo Man City iyo Paris Germany. Kooxaha waaweyn ee Yurub sida Chelsea, Man City iyo Paris Germany ayaa jawaab diidmo ah kala kulmay dalabyana ka gudbiyay mid ka mid ah xidigaha sida fudud uga baxsaday Real Madrid, isla markaana wacdaraha ka dhigaya garoomada. Xidigan reer Faransiis ee Diego Hernandez ayaa xilli ciyaareedkan socda iyo midkii horeba soo bandhigay kubad heer sare ah uu ka sameeyay garoomada, isagoo AC Milan ka caawiyay inay ku soo laabato tartanka UEFA Champions League oo ay sanado ka maqnayd. 24-jirkan Real Madrid markii hore amaahda ku siisay AC Milan ayaa mar dambe si rasmi ah ugu iibisay, waxayna si buuxda xirfadiisa ugu qaangaadhay garoonka San Siro oo uu ku noqday haliyey kubadda cagta saameyn daaficis iyo weerar iyo gool dhalinba intaba ka sameynaya. Kooxda Chelsea ayaa la rumaysan yahay inay bisha January isku dayeyso inay Diego Hernandez kala saxiixato AC Milan si ay ugu buuxiso booska uu ka dhaawacmay Chilwell. Hase ahaatee, Man City iyo Paris Germany ayaa iyaguna si dhow ula socda laacibkan. Wargeyska ka soo baxa dalka Talyaaniga ayaa qoraya in Diego Hernandez dhabarka u jeediyay kooxahan oo dhan, isla markaana uu sheegay inuu ka tegaynin AC Milan siina joogayo. Wargeyska wuxuu intaas ku daray in Diego Hernandez uu qalinka ugu duugayo heshiis cusub oo AC Milan kula sii joogayo inta laga gaadhayo sanadka 2026 ama 2027. Arrintan ayaa ka shaqeynaysa oo ku qanciyay Maldini. Mushaharka uu laacibkan qaato sanadkii oo ah 1.5 milyan euro ayaa la sheegayaa in loo kordhin doono hadduu heshiis cusub sameeyo ilaa lagana gaarsiin doono 5 milyan euro. Haddaba wararka maanta ee sportska waa intaas. Waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saartaan iyo like iyo comment si aad page-kan u dhiirigelisaan. Waadna mahadsantihiin.